السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waa idin salaamay dhammaan akhyaartayda ama asxaabtayda aan ku bahownay bartan aan ku leenahay youtube-ka. Waxaan filayaa koley inaad mataqaanaa caafimaad qabtaan. Waa cashirkeennii wiiklaha ahaa. Waxaynu kasii socodsiin doonaa cashirkeennii taxanaha ahaa markaas ee inoo soo socday. Waxaynu kasii wadi doonaa chapterkeennii aan bilownay toddobaadkii kan ka horreeyay ee ahaa GI-ga ama gastrointestinal system ama digestive system si qof walba u yaqaano. Markaa waxbaan kasoo taabanay ahayd. Waxaan rajeynayaa maanta insha Allah inaynu wax ka taaban doono because of marka physiology laga hadlayo waa concept broad oo loogu talagalay qofka like medicine taa oo kale inuu dhigto. Facultyada kalena hadday dhigtaana ay tahay wax faa'iido aad iyo aad u fara badan because of wax detail oo inaan badan arday u dhigan. Insha Allah halkii baan kasii socodsiin doonaa. Shayna ugu dambeysay introduction iyo regulation iyo waxaan baan isla soo eegnay. Maanta insha Allah bal waxaan rajeynayaa inaan kasoo fiican isla gaari doono. Waan caymada yahay hal ila socdo insha Allah. Receptors of GI tract baan insha Allah maanta isla eegi doonaa. Kulli horta wax kastoo la saganaya receptor inay isla fahmaan qurux badan. Receptor waa shay kasti ay wax ku soo hagaagayaan. For example, reception macnaha kamid like receipt bay kamid reception bay kamid macnaha reception. Salaam ka dhammaan hotel tagayso reception baa jira soo dhaweeyay baa jira meel istaag qoranaya. Koonna waa sidoo kale. Salaam kale enzymes baa la soo siidinaya. Enzymes ka xubin receptor ay ku dhigaan si ay function-kooda u qabtaan. Dawo waxay u baahan jirkeenna ka shaqeyso. Waxay u baahan receptor-ka ay meesha ay ka shaqdo salaam kale wadnuhu ku xanuunaya kale dawadii wadnaha la cuntay. Receptors baa jira wadnaha ku yaala ay dawada ku dhageyso cycle la ka dhigantahay. Receptor-kaas aan isla eegi doonaa maanta. Waxaa jira receptor fara badan oo ku yaala GI-ga marka laga hadlayo gastrointestinal-ka. Ka warreeyo waxay waa mechano receptor. Waa receptor-kii ka jawaab celinayay ama aqbalayay mechanical ahaan waxyaabaha mataqaanaa jirkeena uu dareemayo. Tusaale marka ay xilliyada au respond wuxuu soo jawaab celiyay xilliyada to distension-ka. Salaam cunto fara badan cunto caloosha soo burnaato qofka distension caloosha noqoto kale xilliyadaas oo kale qofku waxa shaqeynaya mechano receptor oo ka jawaab celinaya odhanaya way fara badatay marka hal la yareeyo sidoo kale. Spastic contraction xilliyada contraction ku jira ama xilliyada au movement oo dhaqaaqaya waxna waxa ka jawaab celinaya oo mechano receptor kala dhaw. Kooxo iyagu waxa la yiraahdaa chemoreceptor oo chemical receptor bayga loo yaqaan chemical like mataqaano salaana kale waxay noqonaysaa wuxuu ka jawaab celiyaa xilliyada osmolarity ku jira ozolite-ka iyo mataqaana solvent-ku xilliyada ay isku dhex milmayaan oo kale buu ka jawaab celinayaa. Irritation xilliyada ay wax mataqaana dul qaadasho wax like qof wixii wax dhibaya mataqaana salaana kale caloosha wax dhibaya wajiga laga hadlayaa wax caloosha dhibayo wax intestine-ka dhibay waxyaabo kale markay mataqaana ku dhacaan oo kale waxa ka jawaab celinaya receptor-ka loo yaqaan chemoreceptor. pH-ka kale hadduu mataqaana pH-ka hadduu acid noqdo ama hadduu noqdo alkaline hadduu noqdo waxa ka jawaab celinaya chemoreceptor-ka. Presence of the fat and proteins markay caloosha markay mataqaana ay jirka soo gasho lagu fat-kii waxyaabo baruurtii ama proteinskii markay ay jirka soo galaan way ka jawaab celinayaan mataqaana chemoreceptor. Any product of digestive food iyo mataqaana dhamaadkooda sida loo saariyo say noqonaya wax ka jawaab celinaya chemoreceptor. Thermoreceptor baa iyaguna jira. Thermoreceptor-ku waxay ka respond gareeyaan ka jawaab celiya iyagu thermo haddana horta maqalnayo waa temperature waa temperature receptor bay noqonaysaa thermo. Ay ka jawaab celiyaan in meeshii warm or cold food or drink macnaha wixii aad cuntay waxa uu yahay wax diirimaadba wax qabow oo cola food ama drink wuxuu doona hada whatever is waxa ka jawaab celinaya thermoreceptor. Combine receptor baa jira iyaguna markaad xanuun dareento kuwa receptor ka jawaab celinaya iyaguna jira. Waa tissue injury waxay ka jawaab celiyaan ku respond gareeyaan markuu tissue dhaawacmo. Receptors-ka baa jira iyaguna soo kale bilaaba initiate gareeya GI reflex. Reflex waa jawaab cel ama xog dirid ama wax ka bixi like salaana kale imka waxba calooshaadii soo galay may for example sala yar full bayna soo qaadanaysa isku fahmi karno. Dabbaad maanta gacanta mataqaanay taabsiisay dabkii waa kuleyl isla markiiba maskaxda maxay noqonaysaa isla markiiba gacanta maxay noqonaysaa mid ka soo jawaab celiso isla markiiba ka qaada. Sidaas la mid ah GI-ga markuu wax dareemo
ama wax soo galaan reflex baa jira, ama meeshii tusaale borotinis ha soo galaan caloosha, ama ha soo dhex galaan fat caloosha soo galaan, wixii loo burin lahaa, wixii loo diri lahaa, reflexkii loogu waxayn lahaa, waxyaabahaas dhan buu leeyahay. Marka kuwaas mataqaana initiate gareeya jira reflexkana waxaa kamid ah kuwa active ah oo ama inhibit ku sameeya digestive gland. Receptorska initiate gareeya jira reflex waxay noqonayaan kuwa activate gareeya ama inhibit gareeya digestive gland. Glandska lasoo mataqaana sii deynaya glandis fara badan baa jira, exocrine gland exocrine gland bay noqon karaan, endocrine gland bay noqon karaan. Kaadu glandada lasoo sii deynayo ay waxaan gland waa qanjir soo sii deynayo, wuxuu doona waxaada enzyme haada iyo hormone haada bay mataqaana inhibit gareeyaan ama activate gareeyaan. Mixed lumen xilliyada isku dhex milanta lagu yiri isku mixed kibel ka wada mixku xilliyada mixed lumen content waxyaabo isku dhex jira xilliyada isku milmaya ama ay dhaqaaqayaan oo kale move au soconaya lagu leeyahay through along GIT ku jabay cilmiga waxay noqonayaan markaana receptorska bilaabay GI reflex ka noqonayaan. Way nervous system baa jira control iyo GI tract waxyaabo control GI tract jira, waxaa kamid ah kuwa nervous systemka laba noqon doona mid intrinsic oo guud ahaan iyo mid extrinsic oo mataqaana wax dibadda laga maamulayaa. Intrinsic marka la leeyahay wax gudaha oo la xiriira intrinsic nerve palsy. Intrinsic nerve palsy naan lahayn waa nerveska oo iska leeyahay organku isaga laftiisa, kuwaasoo joogtay GI-ga ama gastrointestinal systemka. Marka waxay ka dhigan tahay GI-ga wuxuu iska leeyahay nerves u gooniya oo ka wax ku maamulan karo ka baxsan ka maskaxda. Way nerve palsy-ka jira, nerve palsy wax weyn waa xidhmo nerves oo isla xiriira oo isla socda noqonaya. Nerve palsy-ka nerve-kaas la socday u dhow GI tract waxay bilaabaan short reflex ma joob celinayar sida nerveska bilaab waxay noqonayaan submucosal palsy iyo intertract palsy. Submucosal palsy waxa laga helaa badanaa mataqaana submucosal gland-ka oo waxa laga helaa submucosal layer-kii aan gareynay aan kusoo dhiganay histology markaan dhiganaynay GI-gan hore u soo aragnay toddobaadkii hore baa laga helaa kuwaasoo control GI secretory activity. GI-gu inay soo sii daayeen secretory idara hormones ahaadaan ama enzymes ahaadaan waxay doona ahaadeen iyo ku maamulayaan. Way kuwa kale myasthenic jira iyaguna kuwa kale myasthenic palsy la jira kuwa waxay control motility of the gut inay wax caloosha dhex socon karaan, waxay u kala gudbi karaan in wax la saari karo waxaas dhan iyaguna markaa maamulaan. Way kaas wuxuu noqon doonaa intrinsic labadan u kala baxay submucosal iyo intertract palsy kala baxay. Way waxaan eegi doonaa daba extrinsic mida kaas wuxuu ah intrinsic wax isaga u gooni yahay organka laga hadlayo. Salaanka marka GI baan ka sheekeynay GI-geena organ mataqaanaa nerveska ay lahaayeen gooni ahaantooda u lahaayeen wayaan intrinsic u noqonaya. Marka extrinsic wuxuu noqonaya waxaan ka madax banaano mataqaanaa ka baxsan wixii aad goonido lahayd. Way iyo waxay noqonayaan waxay la xiriiraan central nervous system ka la xiriiraan extrinsic badan ayagu autonomic nervous waxyaabo ka yimid autonomic deficiency ka beenaan gareeyay. Way sympathetic iyo parasympathetic baa jira. Sympathetic oo mataqaanaa wuxuu decrease gareeyaa function-ka GI-ga, motility uu decrease gareeyaa, sidoo kale secretion-ka in la soo sii daayo waxna uu decrease gareeyaa. Motility-gu waa dhaqaaqa dhex socodka mataqaanaa cuntada ama la saaritaan noqoto. Parasympathetic-guna wuxuu increase gareeyaa GI function-ka mataqaanaa wuxuu burburiyaa secretion-isku waxaya motility-guna farbadiya. Marka cagsi isku yeelay labadan. Way daamadii dul istaagno parasympathetic innervation gareeya gadka waxa la isku dhamaa mataqaanaa intestine-ka iyo abdomen-ka. Marka waxa loo kala qaybiyaa waxay ka imaadaan badan iyagu waxa loo yaqaanaa cranial sacral division balada. Marka cranial parts-ka ka imaadaan maskaxda iyo mataqaanaa sacral division-ka oo hooseysa bay ka imaadaan. Way cranial parasympathetic wuxuu transmit gareeyaa almost entire vagus nerve. Marka waxaan parasympathetic wax kala gudbinaya soo baran wuxuu noqonayaa vagus nerve because of marka laga hadlayo wayaan cranialka because of cranialku waa vagus nerves kan one of ka tirsan cranial nerve soo aragna fili autonomic. Markaas sidaa daraadeed mataqaanaa cranial marka laga hadlayo parasympathetic wuxuu noqonayaa vagus nerve. Wuxuu nagu provide gareeyaa nasiya lagu leeyahay extension innervation esophagus inuu wuxuu innervation gareeyaa badanaa esophagus-ka, stomach-ka, pancreas-ta iyo first half of large intestine. But the later innervation is one large intestine-ka badanaa in badan buu ka innervation gareeyaa qaybta ugu horeysaba, laakiin small intestine-ka waxba ka in yar buu ka mataqaanaa inuu innervation gareeyaa ama uu ka siiyaan innervation-ka uu ka siiya xogta. Way sacral parasympathetic marka laga hadlayo isaguna ka wuxuu ahaa mataqaanaa cranial. Sacral wuxuu ka imaadaa 2, 3, 4 sacral segment buu ka imaadaa spinal cord-ka kuwaas oo soo gudbaa lagu leeyahay pelvic nerves ka sameeyay lagu leeyahay and distal half of large intestine. Marka half-kii soo haray intestine-kan mataqaanaa large intestine-kana qaybtan raacsan parasympathetic. Way wuu sii socdaa sigmoidka rectal-ka anal region-ka breast supply
parasympathetic fiber. Those viral function identification bale marka laga hadlayo mataqaanaa sigmoidka oo intaas ku dhow oo la-aha mataqaanaa large intestineka, rectalka, anal regionka, intaas oo dhan waxa identification gareeya parasympathetic bay ku caayay maadaama mataqaanaa in badan si fiican u supply gareeyo ku badan sababtoo wuxuu ka mas-uuliyaal lagu leeyahay parasympathetic identification reflex xilliga aad wax xaaqaysa ama wax sii deynaysa ama aad ka mataqaanaa wax aad sii deynayso defecationka ama wax calooshaada ka baxayaan kale sida saxaro kale ha noqoto xilliyadas kale iyaguna mataqaanaa markaas maamulayaan way post ganglionic neuronska parasympathetic post waan garanayna ganglionic neurons ugu celimayna maanta waxaan kusoo aragnay autonomic qeexmayno waxay dhacaan bal lagu leeyahay mesenteric and submucosal plex bay dhacaan marka parasympathetic post ganglionigiisa waxayna stimulationka parasympathetic wuxuu sababa channel guud ahaan inuu increase gareeyo activity of the entire nervous system in GI function wuxuu stimulate gareeyaa parasympathetic guud ahaan activity-ga waxyaabaha ay entire neuron mataqaanaa waxyaabaha neuron ku dhex jira mataqaanaa soo sheegnay intrinsic ahaabu marka mataqaanaa activate gareynaya parasympathetic saa daraadeed function GI wuxuu noqonayaa dawlad la'aanaanaya waayo sympathetic si cag ka daba isagaan islaagno sympathetic fiber-ku isagu wuxuu kasoo originate gareeyaa spinal cord-ka between u dhaxaysa kii waxaan la oranay craniosacral soo ma kana xarayna thoracolumbar baa oranayna ka T5 ilaa iyo L2 mataqaanaa ka imaada way preganglionic nerve-ku wuxuu kasoo leave gareeyaa lagu leeyahay cortisku ka imaada lagu leeyahay spinal cortiskan T5 iyo mataqaanaa L5 uu ka imaada dibna wuxuu soo galaa lagu leeyahay sympathetic chain-ka wuxuu soo baas garoobaa kusoo xiisaba lagu leeyahay outlying ganglion such as cilia ganglion and mesenteric ganglion bay imaadaan cilia ganglion iyo mesenteric ganglion waan garanaynaa mesenteric labo haayo hadhawaas leegi doonaa isaga superior inferior bahayd way soo kale waxaa jira ku leeyahay post ganglionic fiber-ka wuxuu kasoo transmit gareeyaa enteric nerve plexus-ka sax sympathetic fiber-ku wuxuu innervate gareeyaa all part of the GI but laakiin more exclusively badanaa wuxuu mataqaanaa kusii caan yaa lagu leeyahay more extensive macnaha wuxuu ku badan yahay ka wadaa oral and anal areas macnaha eriyadooyinkaasoo afka iyo mataqaanaa oral anal area macnaha qeybta dambe mataqaanaa buu ku caan yahay analka sympathetic nerve nd secrete norepinephrine marka la leeyahay mataqaanaa sympathetic-gu NDC-giisu wuxuu soo secrete gareeyaa norepinephrine oo ah one of neurotransmitter ka mid in jiran ahaan norepinephrine waxay stimulate gareysaa sympathetic nervous system dibna waxay nabad gareynaysaa GI function ku ineerado soo kale strong stimulation bay ku sameysaa epinephrine sympathetic system taasina waxay counteracts lagu leeyahay in la xidho GI motility-gii saabay ku xidhaysaa way afferent nerve fiber baa jira lagu leeyahay from gut ka imaada lagu leeyahay waaye many afferentary waxaa jira afferent iyo efferent wax laga dhao afferent waa wax kasta oo mataqaanaa meeshaas soo galaya bay noqonayaan efferentna wax kasta oo ka baxaya either nerve ha ahaato ama fasal ama mataqaanaa ha ahaato waxay doontay afferent dad baqash wax soo galay efferentna wixii ka baxay markaas nerveska many nerveska baa waa lagu leeyahay from ka imaada GI-ga gadka ka imaada some of them have waxay haystaan lagu leeyahay their cell body bay haystaan lagu leeyahay cell body bay center ku haystaan cell body waa collection of neuron macnaha waxaa ka dhigaya cell body-gu waa meesha ay neuronsku ka qaataan xogta bay ka dhigan tahay waayaf Soomaalihan some of them cell body-goodu wuxuu dhacaa lagu leeyahay enteric nervous system waa nerveskiisa muliya ku yaala GI-ga those nerves can be stimulated nerveskaasna waxay stimulate gareyn karaan irritation of the gut mucosa markuu ku dhaco mataqaanaa dhaawac ku dhaco kala waxaan loo dulqaadan karin oo dhibaya markay ku dhacaan kala GI-gi in xilligaas stimulate gareeyaan excessive descent of the gut xilli haday calooshii farabadatay mataqaanaa wixii caloosh ku jira haday calooshu ay taranka cunto farabadan cunto caloosh soo burnaato kale waa excessive distension way of the gut presence of the specific chemical substance in the gut waxyaabaha caloosha soo galo kala saaran kala haday boort soo galaan haday hormone soo galo haday mataqaanaa soo galaan fats haday soo galaan haday lipid soo galaan waxyaabahaas oo dhan way dareemaysaa lagu leeyahay taadilad waxa saacidaya enteric nervous system some of the afferent nerve fiber whose also cell body are enteric nervous system send it to axon through the autonomic nervous termination the celiac mesenteric and hypogastric ganglia wuxuu ka hadlayaa concept-kani qaar ka mid ah uu ku leeyahay mataqaanaa afferent nerveska aan kasoo sheegin hadda toole cell body-goodu kuwaas uu yahay enteric nervous system waxa uu diran axon-koodu macnaha waa neuron-kan waa kan las dheer ee lasku daray xogta from somewhere to somewhere else isku xidha adigu
marka axonkaas ku xidhay lagu leeyahay tiri wuxuu kasoo dhex gudbaa lagu leeyahay autonomic nervous gangrene kasoo gudbaya dabeetana wuxuu to terminate wuxuu si talaabo lagu leeyahay celiac mesenteric and hypogastric sawirka fiican baan insha Allah ku arki doonaa way other tabiska afferentary fiber calf waxay taybisyo kale waxaa jira lagu leeyahay afferentary fiber kuwaasoo haysta lagu leeyahay cell body in the dorsal root of dorsal root of ganglion of the spinal cord waxaa jira kule tabis kale ay afferentary nerve kuwaasoo mataqaanaa haysta lagu leeyahay cell bodygaasna waxaa dhacay lagu dorsal root of ganglia bay dhacdaa gangliyaashan ka sheekeyni caadiga ahayd superior iyo inferior celiac ganglia noqon karta biyogu dhacaan mataqaanaa ee dhacaan dorsalkeeda qeybteeda macnaha way oo ama brain stem ka dhacaan kuwaasoo traffic galay oo u socda lagu leeyahay sympathetic iyo parasympathetic la socdo way allahumma musta'an wa yasifun neurotransmitterska NTS waa neurotransmitterka lagu secrete gareeyo enteric neuronska waxaa kamid ah acetylcholine norepinephrine ATP adenosine triphosphate atqana waxaa kamid ah VIB vasoactive intestinal polyuretral serotonin somatostatin methamphetamine cholecystokinin substance P nitric oxide dopamine waa neurotransmitters laga soo mataqaana secrete gareeyo enteric neuronska gudaha macnaha mataqaana oo jirkeenu iska leeyahay waa ka jirkeenu leeyahay laakiin wuxuu noqon karaa either intrinsic ama extrinsic marka kuwan iyagu waa intrinsic neuronska waa neuronska organku laftiisa quraxantiisa u leeyahay wixii maskaxda ka baxsay bay ka dhiganta macnaha group of neurons baa jira lagu leeyahay kaasoo loo soo secrete gareeyo neurotransmitters waxaa kamid ah cholinergic iyo adrenergic cholinergic waa parasympathetic adrenergicna waa mataqaanaa sympathetic weyn marka ayaga kuwana neuronskina soo secrete gareeyo norepinephrine waxaan jeedaa neurotransmitters aan idhahay reflex baa jira jawaab celin baa jirta reflexku dhacaa lagu leeyahay reflex saddex mano kala qaybayna kow reflex kuwaasoo dhacaa lagu leeyahay entire within the enteric nervous system those include reflex control GI secretion peristalsis mixing contraction local inhibitory effect waxay saddex mano kala qaybeen reflexka ma jawaab celinta reflex iyagoo maamula enteric nervous systemka ay ku jiraan reflexyada GI secretions xilliga lasoo wax lasoo secrete garanayo enzymes haada ama hormones ama wax doonta haatay xilliga wax lasoo secrete garanayo reflex baa jira peristalsis xilliyada kala socodka mataqaana cunto kale say ku intii ku bixi leedahay habbi ku bixi leedahay waxa la peristalsis marka asqaana yinna taa ku jirta reflexka mixing contraction xilliyada salaano kale ay laba wax kala doon jirkeena soo galay xilliyada ay isku mixed garoobayaan na reflex baa mataqaana ka shaqeeya waa local inhibitory effect xilliga meel yar la iska inhibit garanaya effectigeeda aan la doonin in mataqaanaa ay sii shaqayso dibita la iska xirayo marka waa reflex ka shaqeeya adigu mataqaan enteric neuron systemka dibitana controla GI waa inta wada controlaya secretionkii peristalsiskii mixingkii mesocontractionkii local inhibitory effect intaasoo dhan walaasa way example salaano kale waxaan jeedaa talabaad su'aasha labaad yimaado reflex saddex mano kala qaybinay waa 1 iyo 2 iyo 3 sometimes labaan soconnaa laba maxaa kamid ah reflex kuwaasoo ka imaada lagu leeyahay gadka waa intestinka iyo mataqaanaa stomachii waxayna tagaan sympathetic ganglion dibitana waxay kusoo noqdaan GI tract dib ugu soo noqday GI ga tagayaan waxay tagayaan sympathetic dib ugu soo noqonayaan GI ga iyagoo noqda way maxaa kamid ah gastrocolic reflex baa jira gastro waa caloosha colic no colonkiiba signalka waxa u dirtaa lagu leeyahay stomachka waxaa u dirtaa lagu leeyahay evacuation of the colon in colonkii la nadiifiyo gastricdana u diraysa colonka in la nadiifiyo colonkii because of cunto kala soo galaysa meeshii si loogu soo nadiifiyo colonkii ama mataqaanaa intestinekii si loogu soo nadiifiyo way gastric reflex baa jira signalka waxa u diraya lagu leeyahay signal wuxuu ka imanaya lagu leeyahay from colonka and small intestine to inhibit waxa la yiraahdaa stomachka motility-giisa and secretion-kiisa sax way salaam kale waxa farabaatay mataqaanaa wixii la saaraya farabaatay ama intestinekii cunto farabadan yaala ama khashin farabadan yaala si loo saaro ama saxaro farabadan taala si loo saaro weel iska hoojiya cuntada dambe soo galaysa caloosha ama stomach jooga loo diro lagu dhahay stomach ama calooshii jooji waxa la dhanayaa taasna enterogastric reflex way tagixita saddexaad waxay ama siidu colonoiliac reflex waa jira reflexku wuxuu ka imanaya brown from colon ku ka imanaya markaasti waxaad qiimeynaysaa kelmadaha yar meesha yaala colonoiliac marka colon ku ka imanaya ilium ku tagaya party oo qayb kamid ah taqaanaaye small intestine-ka way colon ku ka imanaya dibitana waxa la inmid gareeya lagu leeyahay in
inbit lagu sameeyo lagu leeyahay area content. waxyaabihii area kan waa qayb ka mid ah intestine-ka mataqaan ilaa small intestine-ka in la xidho wixii soo marka soo geliya lagu odhanayo naga xidha waxaan u baahnay inay wax socodsiinay saa kale ka dhiganteeda afkaas kale ku hadlaysa labada waxaan kusoo dhamaynay laba reflex ka mid ah reflex saddex noqon doonaa reflex kaasoo ka imanaya lagu leeyahay intestine-ka iyo gut-ki ka imanaya to the spinal cord ku tagaya lagu leeyahay oo brain stem ku tagaya lagu leeyahay dadibatan wuxuu kusoo noqonaya GI-ga wuxuu ka imanaya ugu horeyn mataqaanaa GI-ga ayuu ka imanayaa dibeta mataqaanaa wuxuu tagaya spinal cord-ka ama brain stem-ka dibetana wuxuu dib ugu soo noqonaya reflex-ka badan waxaa la dhahaa defecation reflex-ka xaaqitaanka ama marka wax la saarayo kale saxarada oo kale hormones bay iguna jeedaan halka enzymes kusoo aragnay kuwaasoo control GI function-ka endocrine cells baa jira lagu leeyahay kuwaasoo soo produce garaya lagu leeyahay GI hormoneska awoodna waxay u leeyihiin milo kaable waxay leeyihiin regulation garayaan motility-ga socdaalka mataqaanaa inay cunto dhex socon karto ama socdaalka cunto lagu saarayo oo kale iyo secretory activity iyo wax in lasoo secret garanayaba iyo markaa maamulayaan kow waxaa ka mid cholecystokinin waxay ka tirsan tahay 330 amino acid intestine-ka aan pancreasamine bala dhaca waxay soo secret garayaan mucus-ka laga soo secret garayaa lagu leeyahay of duodenum mucosa part of the duodenum laga soo mataqaanaa waxay iyo soo kale jejinanka in the response waxay ugu jawaab celisaa to the percent of the fatty food in the intestine haddii cunto fatty food soo gasho cholecystokinin soo diinay oo hadir sheegayni wax kasto calooshayna soo gala wax bay u gooniya cholecystokinin waxay u goonin tahay fatty food waxyaaba fatka Allah musta'an and has a very potency effective gallbladder contractility for expelling bile in the intestine order facilitating digestion also soo kale cholecystokinin waxay qabataa lagu leeyahay effect fiican ku leedahay gallbladder-ka in contractility-giisa wax soo sideynta gallbladder-ka wuxuu sidayaa bile-ka marka waxa caawiya cholecystokinin inay soo sidayaa gallbladder-ka taasi waxay u saamaxaysaa lagu leeyahay for expel in la soo sidayo bile-ki aan soo sheegnay lagu soo deenayo intestine-ka in order si mataqaanaa loogu waxeeyo ay u fudaysa lagu leeyahay facilitate u fudaysa lagu leeyahay digestion-ka iyo absorption-ka wax burburinta iyo mataqaanaa wax soo nuugitaanka si ay ugu fudayso soo kale cholecystokinin waxay nimad galaysaa stomach motility-giisa caloosha inay mataqaanaa wax ka dhaqaaqaan si ay meesha inoo siiso adequate time for fat digestion waxay soo kale mataqaanaa waxay xidhaa lagu leeyahay caloosha motility-gina caloosha wax dhaqaaqaan hormoonkana xidhaya si aanu helno chance aan ku burino cuntooyinka fatska waayahay talabaad maxay tahay waa secretin baa kamid ah 37 amino acid ka tahay waxay soo secret wax lagu secret garayaa because part of the duodenum because waxay ka respond garayaan lagu leeyahay acidic gastric juice pumped from the stomach and stomach-ka wax lagu sidayaa acidic sans ka naqan hydrochloric acid marka acidic-kaas iyo secretin-ta ninka muhiimsan lagu leeyahay waxay increase garaysaa sodium bicarbonate-ka sodium bicarbonate waa mataqaanaa weak acid weak mataqaanaa base secretion-ka pancreas-ta aan waxay increase garaysaa in la soo sidayo sodium bicarbonate si wax loo bar haddii cunto acidic cunto afka jirkeena soo gasho kale secretion by the pancreas and other pancreatic secretion halka laga sii daayo saddexaadna waxay noqon doonaa GIP ama gastric inhibitory peptides baa jira 34 waxay ka samaysan 43 amino acid waxaa soo lagu secret garayaa badanaa iyaga mucosa surface-ka mataqaanaa upper small intestine-ka laga sii waa midhceelka yar baa laga sii daaya qaybta sare waliba waxay ka jawaab celisaa lagu leeyahay cuntooyinka markay soo dhex galaan fat-ka iyo carbohydrate-ka markay soo dhex galaan cuntooyinkaasi in the intestine-ka waliba markay midhceelka soo galaan bay ka jawaab celiyaan waxayna xidhaan lagu leeyahay motor activity-ga of the stomach activity-ga ay cuntadu caloosha wax ku dareemayso motorkii ay ku dareemayso kale buu xidhayaa mataqaanaa GIP-gan la qadayo other GI hormones sida glucagon like days marka iska soo akhristan insha Allah diitana soo baaray wax kasta dad baadho waxa ku fudaanaya soo waxa laga yaabaa in ka soo mis gariya dad soo yeesho gaanta insha Allah inoo soo eega other GI hormones kale waxa isla eegi doonaa iyadana mataqaanaa soo kale inay noo gaabsi ku dhow local mechanism waxa jira waxyaabo local gaaro meel khaas oo gaar salaam kale prostaglandin histamine and other chemicals released iyo chemicalada kale laga soo release gareeyo lagu leeyahay interstitial fluid waxay effect ku yeelan karaan lagu leeyahay within the small segment of digestive tract waxay effect ku yeelan karaan lagu leeyahay meel kamida meelaha oo ka dhacay digestive tract oo meel yar oo waliba local oo yara wana systemic hay the local messengers are important coordination
waxyaabaha local messengersku waxay muhiim u yihiin baa lagu leeyahay wada shaqeynta inay ka jawaab celiyaan xaaladaha sida isbedelka pH-ka meel khaasa or ama chemicals substanceska or ama physical stimulation waxyaabahaas dhan bay gooni u tahay mataqaanaa maamulaysa iyadoo local messengers maana because of waxaa laga yaabaa in small portion yarya caloosha ka mid ah intestine-keenani inay acidic ku farabataan lagu leeyahay marka waxaa maamulaya waxaa mataqaanaa loo adeegsanaya mechanism loo yaqaano local mechanism taasina waxay factor ku leeyahan kartaa lagu leeyahay only portionka digestion ka dhacayo qaybtaas digestion ka dhacayo bayad markaa mataqaanaa yana gooni u ahaanaysa salaano kale histamine waxa lagu soo release gareeyaa lamina propria of stomach waxayna stimulate gareysaa in soo secrete gareyso acid by cells adjacent epithelial cellska ku xiga oo waxa de mataqaanaa isoo sheeg local noqonaya marka cells bay u dhaqmaysaa haddii histamine sii daayo salaano waxay ka tirsan tahay one of local mechanism waxay activate gareynaysaa wax kamid ah waxaasina waxbuu sii activate gareynayaa si uu soo sii daayo waayahay wakaa de wuxuu cells buu activate garanaya cellskan wuxuu soo secrete garanaya acid buu soo secrete garanaya haddaan kusii xijisiiyo slide kusii xiga bloodka supply garanaya reegi doonaa digestionka inagoo bal gabagabeynayna bloodka supply gareeya GI systemka waxaa iyagu mataqaanaa extensively waxaa la dhahaa systemkaas splenic circulation baa la dhahaa lagu leeyahay magaca loo yaqaano splenic blood flow badanaa wuxuu dhacaa 100 milliliter per minute 100 milliliter oo mataqaanaa blood oo mataqaanaa soo sheeg blood waxaan idhaahay baa halkii mililiter bay istaagay ana splenic circulation waa circulation-ka waa bloodka supply garanaya digestion systemka ma gastrointestinal-ka waxa ku jira lagu leeyahay splenic systemkaas blood flow-ga through GI-ga waxa ku xiga lagu leeyahay waxa sii raacsan lagu leeyahay plus spleen-ta pancreas-ta iyo liver-ka all dhammaan bloodkaasi waxa laga soo flow garay waxay sii flow garaysan lagu leeyahay ay mataqaanaa tegayaan baa lagu leeyahay gadka aan soo sheegnay spleen-ka pancreas-ta dendisna waxay sii baas garoomay lagu leeyahay liver-ka tagay inta markay caloosha tagaan ay indhicirka tagaan midhicirka weyn tagaan ay tagaan spleen-ta tagaan ay tagaan pancreas-ta ay tagaan ganaca waxaas dhay tagaan waxay tagayaan liver-ka iyo ugu soo gudbaya portal vein wax la yaqaano waa vein gala vein mataqaanaa markuu bloodka soo dhameeyo waxa la tagayaa liver-ka la geenaya liver-kuna filter galinaya sidoo bloodka lagu daraya mataqaanaa liver-ka loo geenaya heart-ka loo geenaya inta liver-ka marka la hadlayo daba ay joogto bloodku wuxuu ka baas garoobaya lagu leeyahay million is liver sinusoids xidhaha jira sinusoidskaasi waa meelo ay bloodku isdhex galaan badanaa mataqaanaa oxygenated kaasoo lagu mixer garay laga filtration garay ugu dambeyn xaggaas uu ka socdaalaya lagu leeyahay liverka hepatic veins buu raacaya lagu leeyahay dadna wuxuu ku derenge garoobaya inferior vena cava waa veinka tegaya heart-ga caadiga mataqaanaa derenge gareynaya lagu leeyahay general circulation ku galay advantage-ka of sinusoidku ay tagayo bloodka sana usoo sheegnay waxay faa'iido lagu leeyahay waxaa jira reticular endothelial system waxa loo yaqaano waa salisyadani iyagu markaa foreign antigens ama substances-ka dhaska iyo waxyaabaha bakteeriyooyinka iyo waxaas oo dhan iyo microorganism-ka dhan kala reeban reticular endothelial cells cells-ka ku yaala liver-ka ee loo yaqaano Kupffer cells magacooda xagga naguma qornay waxay remove garanaya bacteria aan other particles iyo particles-ka la socda lagu leeyahay mataqaanaa marka bloodka ilaa blood wasakhaysan oo ka yimid caloosha ka yimid midhicirka ka yimid cirka ka yimid qajilka ka yimid mataqaanaa xameetida ka yimid xasada ka yimid liver-ka tagay marka liver-ku inuu qasab iska mataqaanaa iska nadiifiyaa bloodkaas waxyaabaha nadiifin waxa laga qaadan reticular endothelial system ku yaala liver-ka waliba cells species la dhaho Kupffer cells baa nadiifiya dibetana wuxuu ku soo galayaa bloodkii GI-ga dibetana wuxuu ka hortagaya wuxuu noqonayaa blood ka hortagsan ama ka nadiifsan preventing pathogens aan pathogen lahayn free from pathogen noqon doona insha Allah markaas superior mesenteric and inferior mesenteric waa laba arterio kamid ah arterias waxay supply garayaan small-ka iyo large intestine-ka waa laba arterio badanaa ugu sameeya splenic circulation ka sheegnay celiac arteries oo kale wuxuu supply garaya stomach-ka big arteries are branched and rebranched circulation penetrates deep mucosa finally marka waxa jira ugu leeyahay arteriyada waaweyn badanaa iyagoo iskala qaybay lagu leeyahay dibatan qaybintooda way isku midoobaan lagu leeyahay dibatan waxay dhex galaan lagu leeyahay deep to the mucosal filial layer get waa qaybtan villi-ga ee muhiimsan in mataqan absorption ku dhaco wax la soo absorption garayo bay badanaa noqonaysaa blood flow-ga GI-ga u increase karo 100% boqolkiiba 100 increase karo xilliyada aad meal time-ka ama cunayso kale waxyaabaha ugu mataqaanaa ugu caan la soo karo waxyaabaha soo baxa kamid ah possible cause-ka in la soo release gareeyay vasodilation GI hormones in hormones
secret gareeyo hormones-kana ay sameeyeen vasodilation ay fasaliskii farabadiyeen baa u aaneyn karta in bloodku supply gareeyo GI-ga boqolkiiba boqol increase garoobo xilliyada dhajiska. waxyaabaha waxaa ka mid ah hormoneska loo yaqaano cytokinin-kii, VIB, gastrin-tii, secretin-tii, bradykinin-tii, nitric oxides waa hormoneska laisleeyahay loo aadeyn laisleeyahay waxay sababayaan vasodilation sidaa darteedna blood flow-ga GI-ga wuxuu noqonayaa inuu increase garoobo boqolkiiba boqol. haddaan ka socono halkan waa mataqaana wuxuu sheegayaa sawirkii ka aortu noqonaya aortu wuxuu ka yimiday heartu ka yimiday aortan 3 qaybood mu noqdaan waa ka la yiraahdo celiac artery kana la yiraahdo superior mesenteric artery iyo kana la yiraahdo inferior mesenteric artery. marka waa artery-giisa balay gareenayo mataqaana intestine-kii wuxuu dhan buu sabla gareenay kaasoo sabla gareenaya kuwaas marka saaran celiac artery-ga stomach-ka iyo intestine-ka aas dhan buu sabla gareenaya waa mataqaana blood-kii markaas sabla gareenaya GI-ga weyn sawiraan badan kalluumaysi baana waan soo aragnay bloodka supply gareynaya GI-ga oo si hadeer soo sheegno bloodka markuu xagga ka socdo kale marka aorta markuu bloodka maro hoos u dhaadhaco ee ka forta noqonaya mataqaana waa koon bloodkii oo koon ka qaadanaya mataqaana ay hepatic artery baa tagay ana halkan intuu hepatic artery tagay inuu halkan joogo waxa jira GI-gii baa jira GI-gii tagayaan superior mesenteric inferior mesenteric baa ka tafiirmay dibadna bloodkii uu ka talaabay iyaga liftoodu ka talaabay muxuu raacay hepatic artery wuxuu tagayaa liver ku tagayaa dibadna liver-ka wala filter garanaya saas ku tagayaa heart-gi ka intii uu tagayaa heart-gi minoo sheegaya bloodkii sabra garanaya GI-ga kaas waxyaabaha local effect ku lahaan ka lagu leeyahay mataqaana blood flow waxa kamid ah dhacday decrease garoobo oxygen consumption oxygen taday concentration-ka oxygen-ta ku jira jirkeena haday yaraato kale way effect garanaysaa hadduu farabato metabolic product waxyaabaha waste product oo secret garanaya hadduu farabato way effect garanaya blood flow-ga haddii decrease garoobo metabolic demand inta loo baahan yahay in mataqaana la burburiyo haday farabato waxa soo dhan effect garanaysaa nervous-ka control GI-ga blood flow-ga badanaa waxa weeyaan parasympathetic iyo sympathetic parasympathetic badanaa uu increase gareeyaa gut blood flow-ga markasta oo parasympathetic ku kacsan yahay baa shaqeynayo oo maskaxda ku haysa GI-gu uu kordhisan yahay mataqaana blood flow-giisa markaas doonay soo sheegaynabo parasympathetic wuxuu activate gareeyaa ama farabadiyaabana increase gareeyaa line function of GIT halka oo si lamida sympathetic uu decrease gareeyo blood flow-ga sidaa waxay tahay wuxuu decrease gareenayaa function-ka GI-ga way ka dhigantay markaas kulli way ku badiyaan filaya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.